rasaabka gobolka Saraar Axmed Cali Nuur iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Caynaba Cali Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah uga qayb galay kulan lagaga hadlayay habka xirfadaha wacyigelinta hogaaminta iyo xiriirka kala duwan ee bulshada kaas oo soo qaban qaabisay dalada ururada haweenka nagaad isla markaasina ay maalgelinayay hay'adda Care kulankan oo ka qabsoomay hoolka shirarka ee hotelka Isha Caynaba ku yaala gudaha magaalada Caynaba ayaa waxaa ka qayb galayay cuqaal haween iyo qaybo kala duwan kuwaas oo laga soo kala xulay deegaamada iyo tuulooyinka ku dhow magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar waxaana ugu horreynba kulankaasi ka hadlay xogayaha dawladda hoose degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Caynaba Cali Maxamuud kuwaas oo qaybo kala duwan ay kulankan ka soo qayb galay kula dardaarmay in waxyaabaha ay halkan ka bartaan ay kula noqdaan bulshadii ay ka yimaadeen fahamsan waxa meesha u timaadeen waa tababar inay ka faa'iideystaan la gudihiina ilaa iyo wixii la khayraadeen la tartaantaa markaas oo ka faa'iideystaan tababarkaas ka dusiyay wixii halkan u timaadeen inay wadaysamo qaadaan si badan maartay oo shaqaysan loo baahanyahay rasaabka gobolka Saraar Axmed Cali Nuur ayaa si weyn ugu mahadnaqay hay'adda Care iyo dalada ururada haweenka nagaad taas oo ku tilmaamay inay mar walba wacyigelin la daba joogto qaybaha kala duwan ee bulshada Saraar isagoo haweenkana ku tilmaamay inay yihiin aflabarta koobaad ee bulshada tababarkan sida halka wadada oo ku qoran qaybtooda wacyigelinta oo ah qof inuu fahansanaado bi'ada uu ku nool yahay xaaladaha ka jira waxaa jira marka ogaatida bi'ada aad ka nooshahay ee fahamtid dhibaatada ka jirta iyo wuxuu siduu yahay dina waxay ugu gudbaysaa hogaaminta waxaas sidii aad u maaraynay marka taa maaraynta aad ugu gudbadana inta waxaa jira xiriirka aad la yeelan karto bulshada hareeraha inkastoo dumarku runtii dhinaca bulshada ay ragga ay ka firfircoon yihiin oo laga yaabo kulankan ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo joogto ah iyo hawlgallo ay dalada ururada haweenka nagaad ay ka fuliso guud ahaan deegaamada gobolka Saraar jaamac boodacde TV qaranka Soomaaliland Caynaba.